marka imka la yiraahdo dawlad Soomaaliyeed ha la sameeyo dadku dhibtii uu wada arko oo aqbalaya waarina shiriyo la isugu yimaado dad badan baa isu imanaya haddana dawlad noqon mayso maxaa xagee wax iska dhaafsan yani 15 shir 17 shir bay Soomaali gashay mid kasta waxba lagu soo dhisay wixii haddana socon maayo waayo de marka hore in waxaynu sugaynaa yaa meesha sariya inta xoogan qabsanaya nin waliba marka hore wuxuu isleeyahay lagama xoog badna ku day in ay idinku heshaan madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada ama intan laakiin markay intii heshay soo baxdo intaan helin waxay leedahay caga qaba hadaba tan iyo inuu ku kicin reer walba xoogsanaya haday tan qabsatay iyay talaabsanin waa in la dumiyaa inta marka hungurigu inagu jirana waynu midaysanay ila ideology kuma midaysan waxay ku midaysan noo rabnaa dawladdu waa xoog dawladnimadu waa askar iyo ciidan waa system waa dhaqaale iyo cashuur iyo wax la ururinayo waa kayaan jira reerka kayaanka qabsada wuxuu rabaa reeraha kale inuu dhulka la simo to askarta helo ka hubato haduu isagu dhaqaale helo ka dhaqaale bato haduu jaamacada iyo meelaha inta caruurtiisa u diro حتى هدو انت كسمه waxay u arkayaan faankii in laga helay ila reernimadu waa faane ana ka aba fiican ku maamul jiray weeyaan hadii aan markayga ku maamul kari waayo inaan maamulkaaga ridaa fakhriga baan waaya anaga ra'iisul wasaaraha cid wax ma siiyo reerka kama tirsan laakiin mujarrad inuu nin reer hebel yahay ayaa faanka igu filan haddaan markaa faanka waayo inaan faankiina dumiyaa ama inaan markayga ra'iisul wasaaraha noqdo ma aynkan hal waxaynu ka dhiganay ولا يري بل مو dadkani qabiilka tag way qabiilka loogu qaybiyo qabiil miyuu ku qaybsamaysaa de qabiilku si shabaab oo si dumaya idan ayuha alhibba warka qabiilku suu wuxuu dumiyaa waa war practical aynu soo aragnay waxa ka haboon inaan malaayin badan isweydiino wasaynu uga baxnaa saynu uga bixi karnaa dadka badbaale qabaa'ilka bahal ma saxo waxana la tirtiro ma tirtirmayso qabiilnimadu inuu ninku reer ka tirsayo ku abtirsada ceeb ma ilaahi wuxuu inoo tilmaamay shucuubiya qabaa'ileynu nay laakiin maxaa la inoogu tilmaamay li taarafu in isku garataan waa macrifa qabiilku wuxuu inoo joogaa halka galada tan beershuun numberku uu joogo halka lagu weydiiyo 9 number baad taxaysaa anna 9 oday uma taxayaa si lay garto 9 number ma haysto laakiin waxa ay in hebel 9 oday baa sheegaya markaas la garanaya in lay gartaa ma xuma markaa in lay garto oo dadku nasab iyo sihir bay yeesho oo meeshan ka soo jeeda la garta ceeb maaha laakiin mushkiladu waxa weeyaan ideology-ga qabiilka ma bedeli karnaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii ma tirtirin quraysh sidii bay quraysh u ahayd aws iyo khasraj sidii bay aws iyo khasraj u ahaayeen ghatafaan sidii bay ghatafaan u ahayd mudar iyo rabiic sidii bay u ahaayeen qaxtaaniintii yaman sidii bay ahaayeen qaysiintii shaam sidii bay ahaayeen qabiil waliba sidii buu u jiray wuxuu nabigu bedelay alayhi salaatu wasalaam ideology-gii qabiilku haystay afkaartu rumaysnaa waxay ahayd in la isxaqiro oo reerka kale la yeeso quraan iyo sunno badan baa soo degtoo tilmaamaya in la isyeesaa inaanay bannaanayn dadku inuu asal qura wada leeyahay usro qurana ka wada yimi dhoobana laga wada abuuray aab iyo hooyo qurana wada dhaleen sidaana ku kala fiicnayn mabaadi'doodii baa la saxay waxay rumaysnaayeen unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma walaalkaa gar iyo gardarraba u hiili weedha lafteedii buu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam unsur akhaaka dhaaliman aw madluuma weedha tani way yaabeen saxaabadii iyo dee ma wixii hore lagu noqday waa waxay ka soo baxeen wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu xaq ku taagan yahayna u hiili saad qof kastoo muslima ugu hiilin lahayd hadduu baatil ku taagan yahayna ka qabo taasaa hiilkiiya ilaa naar baad ka hor joogtaaye tolka ama dunida marka la jabiyo inaad ka celisaba hiila oo markuu naarta ku gurmayo inaad ku sii daysan maaya iyadu maxay tahay tolka hadda naarta ka celin kari weydo umaad hiilin isagoo baatil wada isagoo cadaab ku gurmaya inaad ku eegtaa waa hiil daro hiilkii nabigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa in xaqana loo sheego hadduu xaq u taagan yahayna lagu taageero waxay dadku sokeeye iyo shisheeye ugu kala ahaayeen inta ay abtirka u kala dhow yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay mid ka sarraysaa inay jirto oo hadday taasi go'do tanna uu go'ayo aasirada bini aadamka waxa isku xidha alwashaa'ij bini aadamka isku xidha waa alwalaa walbaraa waa caqiida waa diin baa reerkii kala kaxaysay ideology wixii la rumaysnaa baa reerku ku kala tegey ghaswatu badar gaal iyo muslim baa isdilay baynu nidhi gaal iyo muslimka isdilaya waayo waa rag ilmaadeeraa markuu quraysh 3 nin oo laba walaaliya inaan ay dhaleen markay soo baxeen
أنصار بقى وصباح ده واحد هذا مرة بنو نبي محمد عليه الصلاة والسلام حي ويدين رجي نودق ما يسوسار وحصو صاري رجع محيك على الترصدان رجع واحد بدل لك على الترسم على صوصار وضع يقول اللي وداقه قبيل القرى وديهين لكن ايديولوجي لو كلا تجي اسلامكم marka wuxuu baro qabiilka ku daweeyay qabiilkani waa wicaa dadka ururiya laakiin ideology maaha afkaartii uu dadku rumaysnaa waxa laga dhigay inay aqeeda noqoto iyo diin inay noqoto al-ukhuwa al-islaamiyya qofku mar haduu muslim yahay inuu ku guleeyahay xuquuqda islaamnimo oo xuquuqda islaamnimo waa maxay an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik واحد نفترض الله تعيش إيران ولا الله تعيش رات حقوقك كقولي وأن تنصره حقوقك كقولي والنصح لكل مسلم إن هذو النصيحة يسو حقوقك كقولي وحوين هذو باهيين هذو حسيسو هذي الظلمين يين كدعسو إذا مبادئ بو إسلام كبري مبادئ إذا سوى حي كامتي إني بوحسو ما دام قبيلو تشيرو نوع ما منافسة شريسة محل الله الله مية وحل بدلي وحي اللي يقول له مية وحل قدي إني كل الله مان خير كي حقه إلهي سبحانه وتعالى أنتو الجنة ينعمو ينيا وحكا ورمي بوحولي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كو الله ما يكره كل الله ما قال الله هذاك مركز اللي قال لي waxa loo oran jiray hal garta dhanka rag uu ka jabay kala baxa reer bal halka ka dagaalgal reer bal halka ka dagaalgal front spell kala siin jiray reer walba isagoo ceebta iska ilaalinayo xagga sare galada dhanka kale ka mari jiray idan reeruhu tanaafuskoodii waxa loo bedelay inay khayr ku tanaafusaan inay wanaag ku tanaafusa loolan inay ku loolaban laakiin wax khayra waxay ku loolamayeen cid waliba islaamka wuxuu taray intuu taray islaamnimada ku soo kordhiyay waxaan oran karaa si kale hadaan u tilmaamo waxa loo sameeyay al-mabadi' al-ulya wal ahdaf al-kubra qabiilkii raay quraysh loo oran jiray maka joogay ama ansaar aws iyo khasraj waxay qaateen fikrada inay dunida mas'uuliyad ka saarantay al-caalam kullu awal wuxuu arkay reerkan ku xigay inuu iska celiyo عقليسو مدينة ما دافينين أو صوحي لهاي خسرة اسكرب خسرة أنا أوس اسكرب هاي قبل الإسلام أما مركا كان وحوار كان الدون كبين يجا مسؤولية دي كسارنتي ولذلك وحي نقدين دد أهداف كبرى مال سراي كفكران له أهداف كبرى مركا كفكرينها وحي نقدين عالم كردن إن الدين قاسيان around 50 years أي دوني ما أنت مسؤول قدقين يوردن صحابة فرطي أنت أقول بدن له دوني ما أنت مسؤول قدقين أنت أقول بدن له صحابة فرطي less than 50 years بين دول بوجا بحين يعني وحلو سمي لما أورانين لما الله مكره رير بل لما الله مكره هي وحلا يدو واحد كل الله ما يصير وينه خير نقضاه وحين نقطي كوي شلي تلا يسيي إنا نقضان مسلمين تبدك أو مجعوين له ويا وحلات المامي ده شيء أنا وحوا هنا أعمال إنيتي تاريخ الإسلامي جا واحد مقشان لنا يدعم حي مسلم ابن قتيبة ابن مسلم الباهلي باهلي وقبيلان قبائل كعربيد لما يجي شريك مده وقبائل وقبيات الماما يا إلى حد أوليه هي إيجا هدي الله نسبيه قبيل كان أول هدي إيجا لو يده ده بيقول باهلي بقى طاي إيجا هو أنا واقعي يسوق ديدن قبيل كاسيه قبيل كعين كالو تلمامي رجال كي كصواب حي وانا كي فرطي محي المشرق العربي سلام كبري كان قلبيت كان وموسى بن نصير طارق بن زياد يرقص رقي لمدها هدي بري بالله كعنا خراسان لقى بلا بوحي كده بيرقي فري وقتيبة بن مسلم هن تابعية وباهلية إسقى يكون علي آبه مسلم ككاري مسلم ورقي عبد الله بن الزبير دقال لقى وقت خلافة ديس وقت يا سقول انت يعني أعمال إنه يهي واحد لقص بحر ريرين أنا وهين بالبري فخري هذا فانفانية واحد قصاب بحضه إلهي يكتيس أهلقا شيء قبل يدي يا مرون بن آدم كوكو شاكو يا ربي أكتيس أهلقا مقعابه إذن عدي فان دوني سي واحد لو شاكو ماشا فان كوشيرا حقويه عدي الرقاني ما كوشرتي واحد لو شاكو الرقاني ماذا ولا لك أنا الوادك سنة ماشا الوادك سدا حقويه طاقاتي وراركو لها وحلة المامي ماشا لغة المامي إذن أيها الإخوة عرب قبل الإسلام waxay soo mareen fitrad ay dunida ugu liiteen iyadoo hareerahooda dawlad xoogan ay ka jireen beershiya dawlad xoogan baa ka jirtay
رومانس كانت دولة حوغان باكا جرتي انتان عربي دكتانا وحبك ما جرين سببتان وحوغا جرين waxay ahayd aqliga hoos u foorarsado qabiil intu noqdo reerkan yare ku xigun buu eegayun reerka ku xigun buu iska dhicinayay wuxuu buu arkayun reerka inaan marnaba laga bixi karin Durayd ibn Simma gabaygiisii maxaa ka mid ahaa wahlana illa min ghaziyya in ghawat ghawaytu in tarshad ghaziyya arshudu waa gabay dheer oo walaalkii ugu baruur diiqayo Durayd ibn Simma waa nin shaacir faariso jaahiligiya islaamka wuu soo gaadhay isagoo da'o gaboobay oo la sido laakiin muu islaamin bale muslimiinta aba ghazwatu Hunayn ku dishay isagoo Hawaazan qabiilkiisa la socda taladii qabiilkiisu intay diiday Auf ibn Malik intuu diiday ayaa dagaalka la soo galay waxay yiraahdaan nin faaris oo macruuf ah boqol dagaal in ka badan buu galay fi jaahiliyati intaba wuu guuleystay bay yiraahdaan rag walaala Allah aha dhamaantood dagaal baa lagu dilay dhamaantood nin walaalkii ka weyn Abdullaahi la yiraahdo bay duulimaad wada qaadeen reer bay xoolo ka qaadeen xoolihii markii laga soo qaadayna sidii qabaylka Soomaaliyeed qaar ka mid ah sameeyeen waagii hore ay dagaalada geela qaadi jireen ayuu meel dhaxays kala fadhiistay geelashiya wixii uu soo qaaday Durayd ibn Simma baa la taliyay walaalkii wuxuu yiri war reer hebel weyna soo gaadhayaan meel cidlaana waad fadhiday halkan hayna fadhiisinine xoolahan guriga geysanne soco may waa nasinaya buu yiri cidii meesha inoogu imanaysa hatimaad halkaynu ku nasanayna wala fadhiyaya meesha iyagoo fadhiya ayaa la soo gaadhay dabeetana inta gamta iyaga loo joogsaday oo Abdullaahigii la dilay oo xoolo dib looga qaaday oo Durayd kan la dhaawacay oo isagoo meydnimo looga tagay bay ka tageen kadib buu gabay tirinaya walaalkii rafaa ugu sameeynaya walaalkii buu baroor diiqaya gabayga baroor diiqay ku jirtaa beedka kani gabayga baroor diiqa waxa kamid ah abiyat uu leeyahay wanaag baan idin sheego waa lay diiday laakiin demiyan wax kala hay buu yiri reer hebel reer hebel baan khilaaf karaya halkay kuma dhaan baan kula maranaya buu leeyahay fikradu wata hatta wanaaga sheegay hadii la diiday reer hebel halku kuma dhayo baan ku maranaya bay taagnaayeen idan waxaan dadkani waxay rumaysnaayeen baa la bedelay oo nabi maxamed bedelay alayhi salaatu wasalaam qabiil iyo qarannimana ma aha wax qaadan kara way reerka meesha qabsada waxaynu arkaynaa faanfaankii inuu inaga helay ama dawladnimadii inuu boobayo ama wixii inuu boobayo waa inaynu dadkan mabaadi geynaa waa inaynu dadkan afkaartooda bedelaa si u fakarayaan waa inaynu bedelaa markaas bay dhici kartaa inay dawladnimo wax ku tari samaysanto qabiilku dawsi fil qamaya wa siyaraniya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa طائفدي فرعون iyo kooxdiisu dad buu gumeystay laakiin muxuu ku gumeystay uu qaybiyay ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay in fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu طائفة fir'aun waa kibray baa ilaahay dadkii meesha joogayna kooxu ka dhigay kooxo markay kooxa noqdeenna kolba koox buu gumeystaa buu nabigu tilmaamaya quraanku sheegaya koox buu kolba gumeystaa kooxda uu gumeysanayo ahkaam adag buu ku xukumaa in caruurtu ragooda la laayo dumarkooda la reebo kooxana uu soo dhaweeyaa Soomaaliya maanta saasu ma ka jirta gaalada international community ee la sheegayo iyo gaalada inagu hareeraysan marka la eego kolba reer bay soo yara dhaweeyaan reer bay hub yara siiyaan reer kalena aakhira loo diraawo ka marka muddo la wadana xaga kalun baa la wadaa oo reer kalena markii soo Addis Ababa ka daadaga Addis Ababa ma inuu soo weydaarana wax badan oo kale isma bedelayaan idan waa taftiit wax keena haddii umada la burburiyo ayan kan wax lagu burburinaya ha ahaadee waxba ma dhalanayaan idan warku wuxuu ku kooban yahay nabiyullaahi muxamed alayhi salaatu wasalaam qabiyaalateena ka adagteena dadku waaba muslimo uu tukanaya waxba rumaysay ibu daweeyay qabiyaalateena ka dhaqan xun oo ka dhaqan adag oo jaahiliyo aan diin haysanin ayuu nabi maxamed daweeyo ka dhigay dawladii dunida ugu xooga badnayd oo ka dhigay haday taasiba dhacday innagana teena waa la daweyn karaa waa dad muslimiina oo dhibaato dhex martay oo jira waa la daweyn karaa dawadaas waxa u baahan tahay kow inaynu islaax ka dhex raadino bulshada reeraha kan heshiiya laba inaynu cadaalad raadino oo cadaaladda dadka deeqda ninku tolaayay wuxuu leeyay wuxuu xaq u lahaa buu waayay cid la dhicisa walla dulminaya dulmiga wuxuu keensaday marka inuu reer dabada geliyo laakiin hadduu cadaalad helayo hadduu helayo booliis intuu tago xaqiisa u dhicinayo tolaayana ma yiraahdo cidna uma yeedheen haddaynu markaa dadkan heshiis ka dhex raadino haddaynu cadaalad ka dhex raadino haddaynu mabaadi ku beerno oo diin islaam dib u noolayno haddaynu samayno ahdaaf kubra ay ku tanaafusaan waxay ku loolamaan oo weyn aynu u samayno waa wax fudud bale waa wicaal la adeegsan karo khayrka wax u tari kara reernimadu markaas sidii jiilkii
صحابة دبا وحقو ترتي كرير أهان مركي تاي أنت عصب كل صعنين أما هذين نسكت دينين الديمقراطية جينا مو حكن جينو حبب بدلي مين سوماليا اللي احنا كي كبح هذي ديمقراطية بقاعدتي لكن ديمقراطية دي وحيسو بدلي دورشوين كودي قدام بي لبا يسديت حسبي بفرا لبا يسديتك حسب ريرون بي هاي تشيلي بولو يروه صبا حسبه سمايستي waxba isma bedelayaan imikada haddaad axsaabta furto axsaabtu magacyadii reerun baad s iyo wax kalood ku dartay ku bedeshay halkaad ka odhan lahayd ururkana reer hebel baa leh kana reer hebel baa leh ayuunbaad magac kaloo af ingiriisi iyo saddex eray ka kooban aad u bixisay laakiin waxaynu u baahnay inaynu bedelaa marka waa ideologiga iyo mabaadi'da la rumaysan yahay iyo inaynu dadkan islaax ka dhex raadino iyo inaynu cadaalad raadino haddaynu se iyada dib ugu celinona 4.5 iyo 7.5 ku qaybsada kuma waxba kuma dhalanayaan haddaynu dhahan dimuqraadiyad baa isdoorta one man one vote waxba isma bedelayaan waayo ideologigii ka horreeyay waxa kani ayaa goobta ka maqan saa daraaddeed warkayga koobari wuxuu yahay ummadnimadu waa dad qiyaadad wadaaga sharci iyo maamul wadaaga caqaa'id iyo afkaar iyo mabaadi' wadaaga ummad noqda intaa kadibna luqo wadaaga innagu intan qaybo ka mida waa wadaagnaa laakiin practical maaha ma hirgelino si ay luqada waa wadaagnaa midabka waa wadaagnaa dhul waa wadaagnaa laakiin mabaadi' aynu wadaagnaa ma taalo